Soomaaliyeed iyo beesha caalamka u sheego hal arin meesha aan taagannahay oo maanta aan shirka jiraa'id ku qabanayno waa meelihii ay bulshada reer Banaadiriga iskugu soo bixi jireen ee cabashadooda iyo oohintooda ay ku muujin jireen dadka ay ka oohin jireen dadka dhibi jire dadka saxariirin jire dadka dhibaatada u keenay siiba aniga aan idinla hadlaayo waxaa laga yaabaa haddaanan gelin 10 mar inaan galay xabsiga dadkii igiliyey waa nimanka hadda jasiiro joogo waxa waaye waxaan nasiib xumo bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh klibkaas waad maqasheen waa ka dharagsantihiin kulligiina maaragtay waad la socotiin jamcadii hore ahayd insha Allah waxaan jeclahay maaragtay inaan runtii aan tacliiqiyo fursadan u raadinay fursad ugu fiican insha Allah waxaan rajeynayaa in hadda ay tahay intaan tacliiq guud gelin waxaan isku dayaa insha Allah inaan ka fogaado wixii iska hor imaad oo shakhsi ah ka imaan kara maaragtay hadalkayga insha Allah waxaan jeclahay inaan insha Allah aan ka fogaado waxa uu ka hadlayo dad badan oo runtii Banaadiriga kamid ah oo ku wareersan yihiin jawharara ka hay mas'aladan sababtoo ah waxay u maleeyaan inuu Banaadir u hiilnayo Banaadir inuu hiilnayo ay u muuqato korkaas markaa ka eegtid saas ay maaragtay u egtaa arrinta laakiinse waxaa jirto Banaadiriga hadda inuu weerar ugu imaanayo dad u shaqeeyo hay'ada ka tirsan dowladda oona asaga adeegsanayo odayga uu ogyahay sheekaas odayga uu la socdaa in kuraasta Banaadiriga loo dan leeyahay walaalayaalow reer Banaadir jahwareerka iska dhaafa ani kulligiina midin dhahay laakiin waa la ogyahay in loo dan leeyahay kuraasta 4.5ka ee Banaadiriga يعني كو يتوان حبنو اي قدق دورشوينك Banaadiriga la soo dhisay sidii hadda ay ku dhisan yihiin doorashada dhexdhexaad kama noqon karaan laakiin waxa way fargelintaas is okay way banaan tahay hadii asaga kursi uu ka helay oo kursi lagu soo tuuray oo kursi loo musuqmaasuqayo it's okay wax ma dhibaayo waa ma khasheen yani clipkan hadii ama khasheen maartay wuxuu sigaara u weeraray laba mas'uul hore oo haddana ka tirsan maaragtay midowga murashaxiinta xilka madaxweyne inuu maaragtay sigaara u weeraray sababtoo ah wuxuu ka xanaaqsan yahay in Shariif Jagan ka hadlaya wuxuu ka xanaaqsan yahay war saxaafadeedkii ay soo saareen iyo arrimaha quseeyo xilliga kala guurka macnaha waxa waaye maxaa la yiraahdaa doorashooyinka waay waxay qodobo ka soo saareen magacaabista guddiga doorashooyinka ee Banaadiriga qodobay ka soo saareen waxay tilmaameen in doorashada lagu qabto xerada Afisyooni goobjoog ka ahaadaan wakiila ka socda murashaxiintaas yaa haddii saas yani loo fiiriyo murashaxiintaasay ma noqon karo kamid noqon karo sababtoo ah conditiona ku xiran shuruuda ku xiran kama mid noqon karo murashaxiinta wakiilo ka socda murashaxiinta inay goojoog ka ahaadaan beesha caalamka booliska iyo amisom intaas maxay tilmaamaysaa waxay tilmaamay in doorashada aan la musuqmaasuqi karin haddii intaas la helo waxa uu ka xanaaqsan uu kheelina intaas way qodobadaas waxa kamid ah qodobada ay soo saareen midowga murashaxiinta waxa kamid ah xulista ergada ya inay iska kaashadaan odayaasha dhaqanka
iyo bulshada rayidka ee beesha kursiga iska leh yani beelaha kuraasta iska leh ee banaadirga waa la yaqaanaa. inta 4.5 uu soo socday beelihii kuraasta ku qornaa kuwaas waay, asaga ma noqon karo. qodob kale wuxuu tilmaamaa in la xaqiijiyo qoondada haweenka ee 30%. intaas marka oo aan soo sheegnay waa inta la damacsan yahay in la musuqmaasuqo, inta la damacsan yahay in la musuqmaasuqo waaye. oo maaragta hadda murashaxiinta xilka madaxweyne ama midowga murashaxiinta ay qodobo ka soo saareen in laga hortago. waxa loo xanaaqsan yahay kaas waaye. waxaas dhihina banaadir loo hiilina, waxa loo xanaaqsan yahay kaas waaye. ma fahanteen? aragis war idinka markaad ka hadlaysiin kuraasta banaadirga iyo guddiga banaadirga musharax banaadir ma idinkugu jiro? murashax banaadir ma idinkugu jiro kuraasta banaadirga markii aad ka hadlaysiin? jawaabtu waxa waaye nimankan stakeholders waay. maxaa u diidayo? yani markii laga hadlayo hanaan doorasho yaa lagala tashanaa? dowladdii kala tashanaysaa, stakeholderskii kala tashanaysaa. waxaa ka mid ah bulshada ka mid ah, bulshada rayidka ka mid ah, aqoon-yahanka ka mid ah, madaxda dhaqanka, cuqaasha, siyaasiyiinta, ganacsatada. stakeholders waa kulligood. yaa kaloo laga tashanaa. waxaan maaragtay idin akrinaa hadal oo ra-iisul wasaare Roble uu jeediyey markuu ansixinayay guddiga qabanqaabada doorashooyinka oo ay ku jiraan maaragtay 11 xubnood ee banaadirga loo magacaabay. marka hadaladiis waxaa ka mid ahay inay maaragtay ku dhaqmaan hufnaan, ka fogaadaan musuq maasuq, isdabamarinta inay ka fogaadaan, iyo cadaalad daradan inay ka fogaadaan. marka wuxuu u sheegay inay waajib ay ka saaran tahay inay ilaaliyaan qoondada haweenka ee 30 boqolkiiba 30 qoondada haweenka boqolkiiba 30 ma fahmaysiin? qoondada haweenka boqolkiiba 30 dhowr jeer ku soo celceliyay. waxaan ka wada fahmaysiin oo malaynaa. ala kulli xaal hadalkiisa waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha, waxaan idinkula dardaarmaa inaad u gudataan waajibaadkiina si xilkaasnimo ku jirto oo madax bannaan, ku salaysan, kana fog wax alla wixii keeni kara tuhmo iyo amin darro. marka anakane reer banaadir waxaan leenahay ra-iisul wasaaruhu soo dhawow. hadal qurux badan waay. waxaan ku haynaa xusna dhanni ayaan ku haynaa. waxaan ku haynaa maxaa la yidhahdaa malo wanaagsan aan ku haynaa. malada xun ayadaan ka horumarinayna. laakiin hadalka adiga aad soo jeedisay iyo xubnihii aad ansixisay labay kala yihiin. aan sii socdo. maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid. qofka markuu hadal ku hadlo laba malaa'igaa la jirto oo ilaahi subxana watacaala na soo raacsiiyey qof kasta. laba malaa'ig, raqiib iyo catiid. hadalku ma hadlo, hadal wax ugu yar waay maanta. ficilkiisii kulli iska badaa. ilaa ladayhi raqiibun catiid kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun. aayad kool ilaahi subxana watacaala ku yiri. aakhiro kitaabkaas gacanta laga saaraa. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.